muddo 50 sano ku siman goob milatariga ka caagan ayaa kala qaybisa Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed oo ah xudunta xuduudda aadka u hubaysan ee adduunka. dadka qaarna waxaabay ugu yeedheen meesha ugu halisaysan adduunka guudkiisa. askartu waxay markasta ku jiraan feejignaan waxaanay u taagan yihiin inay ka jawaabaan daandaansi kasta oo ku yimaada. badana nabadi ma jirto dagaalna ma jiro miridho iyo biraqsiyo kasta guud ahaan meel kaasan oo dagaal la fili karo. bishii Abriil 2003 waqooyiga Kuuriya waxay u dirtay Mareykanka fariin ah inay samaysatay hub nuclear ah waxaanay Mareykanka u cadaysay wixii ay aadka uga digaysay. waqooyiga Kuuriya waxay adeegsadeen habaynta nuclearka waana mid cabsi leh. waxay iska dhagamarisay Mareykanka dawladda waqooyiga Kuuriya xiisadda ay abuurtay waxay adduunka ku beertay khatar caalami ah iyo dagaal iyo hanjabaado dhinaca afka ah. Mareykanku kumay talagelin in ay tijaabiso awoodda militarigeeda. xudunta xiisadda waxa kiciyay Kim Jong-il oo ah hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya oo dhalay cadaawadda adduunka kaasoo dadka dalkiisa si cadaan ah ay u caabudaan. waxaanu aabihii xilligaasi ka dhaxlay xukunka waqooyiga Kuuriya sanadkii 1994 waxaanay dad badan oo adduunka ahi ay wiilkiisa ku dhaliili jireen inuu yahay nin aan waxba maamuli karin. waxay ku sheegi jireen in qayb dumarihi ay ku jirto balse taasi waxay iska ahayd uun fikir guud oo ay iska haysteen balse waxa run ahayd in uu qorshe dejiye weyn ahaa iyo nin awood leh. arrinta aan su'aal iska weydiin karin ayaa ah in uu lahaa 1 milyan oo ciidamo hubaysan ah iyo in uu rumaysnaa in uu haysto hub nuclear ah iyo in si bilaa su'aala uu taageero uga haysto dadkiisa. haddaba si aynu si buuxda u fahanno dhibaatada gudaha waqooyiga Kuuriya taala waa wadan gebi ahaanba la go'doomiyay oo go'doon ku jira. waqooyiga Kuuriya waxa ay dadkeeda ka xaaraantimaysay oo ay ka mamnuucday inay dalka ka baxaan waxaanay dhammaanba ka jartay xogihii ay ka heli lahaayeen adduunka kale. ma jiraan wargeys dibadda ka soo baxa oo yimaada dalka ma jiraan telefishinno dibadda ah oo la daawadaa dhammaan idaacadaha gacanta ayay ku qabatay waxa keliya oo ay arkaan waa dacaayadda ay dawladoodu dirayso. dhammaan waa la xadiday isticmaalka kombiyuutarada internetka waa laga joojiyey telefishinadana waa la xadiday waxaana had iyo jeer haga guulwadayaasha dawladda. dadaalada dawladuna waxa weeye in aan waxba laga ogaan waxa gudaha ka jira. macaluul dhimasho badan sababtay ayaa ku dhufatay dalka waqooyiga Kuuriya 1990 xilligaas oo qaxooti tiro badani ay sida daadka u galeen ama ugu baxsadeen Shiinaha halka kuwa kalena ay wajaheen xorriyadda koonfurta Kuuriya intii ay ku guda jireen nolosha macaluusha ah iyo cadaadiska. Ji Hae-nam waxay u fakatay koonfurta Kuuriya 1998 dawladda waqooyiga Kuuriya markasta waxay u xiisa qabtaa inay abuurto dagaal dan kama laha dadkeeda. anigana qashin igama duwana aniguna waxaan ka mid ahaa kuwii u soo fakaday koonfurta Kuuriya. jawaabtaydiina xaggaas ayaan ku soo xabaalay halkii aan ka imid waa meesha taliska foosha xuni uu xukumo wuuna duusiyey xaqayagii. Hae-nam waxay ku soo kortay saboolnimo magaalo warshadeeda Hamhung ee bariga dalkaasi ku taala. intii ay dugsiga sare dhiganaysayna way guursatay waxaana yeelatay wiil. intii macaluushaasi socotay qoyskeedu wuxuu halgan ugu jiray sidii ay u noolaan lahaayeen. raashinka ardaydu waxa uu ahaa 1 gram oo bariis ah. markii aan yaraana waxaan ka iman jiray qoys sabool ah. markii aan guursaday waxaadan tagay bangiga dhiigga si aan u iibiyo dhiiggayga si aan ugu noolaano aniga iyo qoyskaygu.
wadnahaygu ilin ayuu gobo leeyahay markaan xasuusto markii wiilkaygu uu u ooyayay cunto waxaan u dareemayaa si xanuun badan wuxuu ku nool yahay nolol kale waxaanan filayaa in wiilkaygu uu wax badan u marayo sidii uu u quudin lahaa xaaska aabbihii maxaad ka fili lahayd waxaan filayaa oo keliya in xilligan uu dhintay sheekada Vietnam waxaa daris la malaayiin qof oo reer waqooyiga Kuuriya ah sidaas oo ay tahay waqooyiga Kuuriya waxa uu qani ku yahay dhaqanka inkastoo ay nasiib darro ku jirto waxa jawaabta haya dadka ka soo fakaday dalkaasi muhiimadda istaraatiijiyadeed ee waqooyiga Kuuriya ay dhacdo waxa ay keentay in la qabsado oo ay hoos tagto kuwa cadowgooda ah taariikhdaasina waxa ay geysiisay boqolaal weerar oo dibadda iyo gudaha kaga yimid 1904 Japan ayaa duulaan ku qabsatay Kuuriya si dhaqso ahna waxay ugu dhawaaqday in ay gumaysato qabsashadii Japan ay qabsatay Kuuriya waxay ku dhisnayd xukun foolxun oo lagu dadka Kuuriya oo ay ku hayeen Jabaanku jabhadayni iyo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ay Kuuriya dib ugu soo qaaday waxa ay iska kicisay gumaysigii Jabaaniiska ilaa dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka markaas oo Japan ay qabsadeen sanadkii 1945 ciidamadii Ruushka oo isku fidiyay waqooyiga Kuuriya waxa uu Mareykanku u qabsaday qaybta kale ee koonfurta Kuuriya gacanka Kuuriya waxa loo kala jaray laba qaybood halkaas oo koonfurtu ay ka hana qaaday dimuqraadiyaddu halka waqooyigana uu Ruushku ka dhisay goobo shuuciya ay Pyongyang caasimad u noqotay sanadkii 1948 laba sanadood kadib jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kuuriya waxa ay ku dhawaaqday awood siyaasad adag halkaas oo hogaamiye uu u noqday 36 jir la yiraahdo Kim Jong-un oo awow u ah hogaamiyaha hadda ee waqooyiga Kuuriya Kim Il-sung waxa uu ku dhashay caasimadda Pyongyang 1912 waxaanu Kim uu ku biiray dugsi Chinese ah balse waxbarashadiisii tooska ahayd wuxuu ku soo afjaray fasalka 8aad markii laga soo oriyay oo xabsi la dhigay waxaanu xilligaasi ku biiray xisbigii shuuciga ahaa ee Communist Party Organization kadib markii la soo daayay 1930 waxa uu ku biiray dagaalkii gorilaynta ahaa ee lagaga soo horjeeday militariga Jabaaniiska oo markaasi qabsaday labada Kuuriya Kim waxa uu noqday taliye axmaq ah sumcadna waxa uu ka helay axmaqnimada 1941 markii Jabaaniiska lagu jabiyay dagaalkii gorilaynta ahaa Kim Il-sung waxa uu 5 sanadood joogay Ruushka koor intii midowga Sovieti aanu u doorin inuu ku noqdo dalkiisii waqooyiga Kuuriya si uu u hogaamiyo markii uu gacanta ku dhigay waqooyiga Kuuriya Kim waxa uu sidaasi dibadda ugu soo baxay bishii Juun 25keedii 1950 waqooyiga Kuuriya waxa uu dagaal ku qaaday koonfurta Kuuriya waxaanu ahaa dagaal ay ku doonayeen inay kaga go'aan oo gacanta ku hayo Kim Il-sung markii bil dagaalka lagu jiray Chinese-ku waxay 300,000 oo ciidana ay u direen waqooyiga Kuuriya si ay u caawiyaan ciidamadooda qaramada midoobay oo ay horkacayeen ciidamada Mareykanku ayaa soo farageliyay si ay u gargaaraan koonfurta Kuuriya dhiigbixii dagaalkaasina wuxuu saameeyay labada dhinac wax kasta way burbureen oo waxa burburiyay bombooyinka culculus ee ku soo dhacayay caasimada Seoul ee koonfurta Kuuriya waxa uu u muuqday muuqaal foolxun dhammaan guryuhu way burbureen waxa kaliya oo taagna tiirarka bishii July 27keedii 1953 cadaawadii waxay noqotay mid la soo afjaro waxaanay kala saxeexdeen heshiis afargeesood ah oo koonfurta iyo Mareykanka ah iyo waqooyiga iyo Chinese-ka oo dhinaca waxaana labada Kuuriya loo kala jeexay xad dheerarsan 38 xuduudana waa la xidhay kumanaan qoys oo Kuuriyaan ah ayaa kala
qaybsamay oo labada dhinac kala raacay. 1932 Habanow waxay ahayd 26 jir jilaa filimada ah oo ku noolayd caasimadda Sool markii walaalkeed ay kala qaybsameen oo ay si lamida sida ay u kala qaybsameen Habanow iyo walaalkeeda Hasankiin. dhammaan waxay ugu kala qaybsameen dadkii labada dhinac kala deganaa. waxa kala jaray tali sirdoonkiisu adag yahay iyo hogaamiye isku arka in isaga la caabudo. markii uu dagaalka Kuuriya uu bilaabmay, xubno doonayay in awoodda laga dayriyo Kim Il Sung ayaa waxa uu ku sameeyey intii uu dagaalku socday qaar dibadda u baxsada, kuwa xabsi uu u taxaabo iyo kuwa uu kharajiyo. balse siyaasadda mucaaridku waxay ahayd dhibaatada Kim Il Sung. Kim Il Sung waxa uu bilaabay qorshe dib uu ugu dhisayo dhaqaalaha, isagoo taageero ka helayay midowgii Suufiyati iyo Shiinaha. si dhaqso ah dhaqaalihii ayaa dib ugu soo noqday. bartamihii 1960 kala qaybintii Kim Il Sung waxa ay meel ku yeelatay, waxaana maanta ka jira waqooyiga Kuuriya qawaaniin uu jeexay. sidoo kale waxa uu xilligaasi uu dhisay quwadda waddankiisa. Kim waxa uu bilaabay barnaamij uu ku horumarinayo hubka nukliyeerka. sanadkii 1965 Ruushku wuxuu siiyey walxaha laga sameeyo hubka nukliyeerka. fikradihii uu bilaabay waxay ahayd guubaabo wadaniyad ku dhisan, waxaanay sidoo kale ka hadlaysay in waqooyiga Kuuriya ay tahay dhulka barakaysan ee la doortay ee uu hogaamiye weyn. 30 sano oo uu awoodda hayay Kim Il Sung waxa uu bilaabay markii da'diisu ay gaadhay 65 jir in wiilkiisa weyn uu u tababaro si uu xilka ugala wareego. sidaana waxaa kula wareegay inankiisa Kim Jong Il. waxa uu ku dhashay midowgii Suufiyati sanadkii 1942 waxaanuu ku soo koray daacadnimadii aabihii uu u hayay. 1980 madaxweynahan xilka kala wareegay aabihii ee Kim Jong Il waxa uu noqday oo loo magacaabay xogayaha xisbiga dalkaasi. Kim waxa uu bilaabay in dhismayaal iyo taalooyin uu u dhiso aabihii si uu u xuso. Kim Jong Il waxa uu u dhaqmayay sidii aabihii, balse waxa uu kaga duwanaa dhinacyo badan. dad badan waxay sheegeen inuu yahay calooshiisa la ciyaar. waxa uu sameeyey shaneemooyin iyo tiyaataro lagu daawado filimada reer galbeedka.